kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xidhan kanaalka Qalbi Somali TV. maanta waxaynu ka hadlaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee garhka deystay ama garhka la baxay iyo waliba fanaaniinta Soomaaliyeed ee aan garhka lahayn amaba aan jeclayn inay garhka la baxaan. haddaba waxaynu isbarbardhigeena maanta ku samayn doonaa kuwee ayaa qurux badan, kuwee ayaa isteel wanaagsan. intaynaan mawduuceena u galin, fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay, fadlan calaamada subscribe ka taabo kadibna calaamada gambaleel ka taabo. inta kadib waxaad heli doontaa barnaamijyada xiisaha badan ee maalin kasta halkan aan ku soo gudbino. ku soo dhawaada barnaamijka. daawadayaasha qiimaha badan oo ugu horeyn garhku waa haybada iyo quruxda ragga, sidoo kalena waa astaanta ragga muslimiinta ah. laakiin waqtiga aynu joogno, isteelka garhku waxa uu ka gudbay xadkiisii, isla markaana bulshooyinka adduunka oo dhan ayaa la baxa garhka. sidaasoy tahay, waxaa jira fanaaniin Soomaaliyeed oo fanaankan iminka aad u jeedaan uu ka mid yahay oo garhka la baxay. fanaankan waxaa loo yaqaanaa Maxamed Alta. waa fanaan qaaradda Ameerika ku nool, waa fanaan Soomaaliyeed. sidaasoy tahayna fanaankani waxa uu caan ku yahay sidiisaba gardaysashada ama garhkiisa. sidaasoy tahayna fanaankani markasta waxa uu isteel ku leeyahay ama ku qurux badan yahay garhka. sidaasoy tahay daawadayaal, garhku waxa weeye haybada iyo quruxda ragga sida aynu soo sheegnay. haddaba fanaankan oo loo yaqaano Maxamed Alta waxa uu ku soo shaabaxay amaba uu caan weligiiba ku ahaa daysashada garhka. waxaanu kaga duwayeetaa ama kaga wanaagsan yahay fanaaniinta bilaa garhka. balse fanaaniinta aan garhka lahayn sidooda caadiga ahba iyagu waxay kaga qurux badan yihiin astaamo kale ayay kaga qurux badan yihiin fanaaniinta Soomaaliyeed ee iyaguna garhka deystay. haddaba bal iminkana waxaynu eegi doonaa inagoo ka gudbayna Maxamed Alta fanaanka loo yaqaano Beerof ama Mukhtaar Beerof loo yaqaano. run ahaantii fanaankan ma garanayno inuu garhka iska xiiray iyo inuu uba soo bixi waayeyba, taa ma sheegi karno. Mukhtaar Beerof waa fanaan gaaban, laakiin run ahaantii dadku marka ay arkaan, dadka qaar ilmo yar baabay moodaan. ilmaha yar waxa sababaysa gaabnaanta. marka gaabnaantuna wax ceeba maaha, waa wax Ilaahay u dhaliyo weeyaan. qofka bini'aadanka ama u dheeriye ama u gaaban yahay, waa labadaasun. bulshada aduu ku nool intaasay ka kooban tahay. laakiin aynu soo laabano, garhka Beerof ma laha run ahaantii inuu gubo, inuu xiiro, inuu wax kala mariyo iyo inuusan uba soo bixin oo uu seenye yahay alla og, taana ma ogaa karno. laakiin run ahaantii waxaynu oran karnaa fanaankani wuxuu aad ugu qurux badan yahay garh la-aanta. waayo fanaaniinta qaarkood fanaaniinta garhka kusoo baxa waa fanaaniinta dhaadheer weeyaan. sidaasay tahay Mukhtaar Beerof maadaama uu yahay fanaan gaaban, haddana garhkiisu ma badna. waa intaa yaree garhka halkaa hoose ku taala ee uu sameeyey farta raaciyey ama uu dhexda ka jeexay. sidaasay tahayna fanaanka loo yaqaano Beerof run ahaantii haddii uu garh lahaa isla markaana isagoo garh leh uu soo fanka soo geli lahaa, waxaa loo malay lahaa nin aada u weyn. sidaasay tahayna ma garan karno sababaha uu garhka ula bixi waayey, laakiin haddana waxaynu qiyaasaynaa in fanaankani haddii uu xataa garh leeyahay uusan jeclaan lahayn inuu garh soo baxo. sababtu waxa weeye garhka faa'iidooyin badan buu leeyahay, laakiin waqtiyada qaar waxa uu fanaan ku xisaabtami karaa sidii uu bulshada u qarci lahaa isagoo bilaa garha. haddaba waxaan kaloo eegi doonaa fanaanka caanka ee loo yaqaano Mursal Muuse. fanaanka loo yaqaano Mursal Muuse run ahaantii markii hore garh muu lahaa jirin. garhna intaa yar ee halkaa hoose ku taala ee imikaba kuu muuqata ayuu lahaa jiray. laakiin fanaankani waxa uu garh la baxay markii fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan uu arkay dhammaantood iyagoo garhkii daystay, iyagoo garhkii la baxay, iyagoo garhkii isteel ku noqday. sidoo kalena dunida meelo badan oo kale oo fanaaniin kale oo ku xidheeya fanaankani, waayo fanaan waliba waxaa jira fanaaniin dunida ah oo taageero. sidaasay tahay fanaaniintiisaas iyo dadka caanka u taageero markuu garhka ku arko
isaguna maadaama qof caan yahay oo uu yahay 14 milyan oo qof, yacni 14 milyan odhan maayo, waxaan odhanaya 20 milyan ama ka badanba. Soomaalidu waa tiro aad u badan weeyaan run ahaantii. Yacni waxaa la yidhahdaa waa 20 milyan, waa 14 milyan, waxaasay dadku sheegaan. Laakiin Soomaalidu intay tahayba, fanaankani waxa uu isu haystaa ama fanaankani uu yahayba yacni fanaan intaas oo dhan matala xagga fanka marka laga hadlayo. Sidaasoy tahay si uu dadkiisa taageerayaashiisa u qanciyo, islamarkaana uu stageka ama fanka ama maaragtay tiyaatarka ama meesha maaragtay heesta ka qaadayo, yacni ama golaha heesaha ama fanka iyo suugaanta ama showgiisaba aan nidhaahno, meelaha uu ka qaadayo si uu ula soo istaago yacni style qurux badan. Waxa uu la baxay fanaankani garhka. Run ahaantiina marka uu garhka leeyahay iyo marka kale aanu fanaankan, waxaan odhan karaa marka kale aanu garhka lahayn buu ku qurux badan yahay. fanaanka waad ujeedaan iminka garh buu leeyahay, laakiin marka kale ku qurux badan yahay. laakiin sidanba waa iska caadi, waayo garhku waa style mar walba. sidoo kalena waxaynu eegi doonaa fanaanka reer muqdisho, fanaanka superstarka. waa fanaanka loo yaqaano, sawirkiisa wada aragtan, waa fanaanka loo yaqaano Khadarkeyo. Khadarkeyo run ahaantii garhka marnaba kuma soo baxin, astaamahaana ugu soo baxayn iyo sababahaana ugu soo baxayna waxa uu kala mid yahay fanaanka loo yaqaano Berof ayuu kala mid yahay. sababtu waxa weeye fanaankani waa fanaan gaaban, nin gaabanna garh kuma soo baxo. laakiin sida uu xiiray isagu garhka, kolley waxa weeye nin qaangaadha, waa nin weyn weeyaan. laakiin sidaasay tahay haddana garhka marka aanu fanaankani la bixin, sababo u xiiray alla og. laakiin haddana sababo waxaa jira aynu qiyaasi karno. sababaha aynu qiyaasi karno waxaa ka mid ah fanaankani markuu quruxdiisa arkay oo welibana istijaabiyey, waxa uu ogaaday marka uu garhka leeyahay iyo marka aanu lahayn. sidaas daraaddeed waxa uu muuqaalkiisu fanaanka soo baxay, islamarkaana muuqaalkiisu dabadda yimi, islamarkaana quruxdiisa iyo welibana maaragtay yacni steelkiisu uu dabadda imanaya marka aanu garhka lahayn. haddaba fanaankani waa fanaan caana, waa fanaan Soomaaliyeed, waa fanaaniinta aan odhan karno waa fanaaniinta ugu sarreeya Soomaalida waqtigan imika lagu jiro. balse run ahaantii fanaankani ma jecla inuu garh la baxo. weligaa meed aragtay? haddaba daawada adigaan ku weydiiye, fanaanka loo yaqaano Khadarkeyo oo leh gadh ama garh weyn la baxay ma jirto, waayo kuma soo baxayo. balse fanaaniinta kale waa ay ku soo baxayaan, sida fanaaniinta iminka aynu ka hadli doono iyo kuwii aynu kasoo hadalnayba. sidaa daraaddeed Khadarkeyo marnaba ma jeclaa doono, mana arki doontaan Khadarkeyo oo garh la baxay. ma sheegin isagoo jeel ku jira. intaa kadib waxaa jira fanaanka kale isaguna Soomaaliyeed ee loo yaqaano Farxaan Yare. sidaasoy tahayna fanaankani waa fanaan Soomaaliyeed, laakiin run ahaantii imika waxaa jira in fanaaniintu ay la baxaan magacyo xagga dambe laga raacinayo Yare. run ahaantii fanaankani ma yara, laakiin haddana markay runta ka hadalno waa fanaan Soomaaliyeed, islamarkaana lagu tiri karo fanaaniinta dhalinyarada ah. sidaasoy tahay haddaba Farxaan Yare magaciisa waa iska sitee, laakiin waxa uu steel ku yahay, islamarkaana ku qurux badan yahay, islamarkaana aanu soo bixi lahayn haddii aanu lahayn garhka ama maaragtay steelka garhka. waxa uu fanaankani ku yahay fanaan yacni habi ku ah, islamarkaana bulshadu markay arkayso, haddii fanaankani kaa soo horbixi lahaa fanaankanoo bilaa garha iyo isagoo garh leh, run ahaantii waxaa kuu soo bixi lahayd yacni aad fanaankan yacni taageeri lahayd, ama uu noqon lahaa fanaan maaragtay steelkiisa iyo muuqaalkiisa iyo qaabkiisuba uu soo baxo isagoo garh leh. hadduu kaa soo horbaxo run ahaantii waxaad sii lahayd calaamada like-taad sii lahayd. laakiin haddii uu kaa soo baxo isagoon garh lahayn, run ahaantii fanaankan waa laga carari lahaa. sababtu waxa weeye fanaankani waxa uu ogaaday isaguna inuu garhka ku qurux badan yahay. maadaamuu garhka ku qurux badan yahayna, run ahaantii waa fanaan aynu odhan karno una qirayno inuu yahay fanaan dhinaca garhka. marka ragga laga hadlayo fanaaniinta, fanaan dhinaca ragga yacni ragga ugu garhka quruxda badan leh. sidoo kale waxaynu ka hadlaynaa xidiga weyn, xidiga yacni reer Somaliland, sidoo kalena ah reer Soomaaliya, xidiga loo yaqaano Nimcaan Hilaac. nimcaan Hilaac kule magaciisa waa magacaad weyn. fanaankani waa fanaan ka tirsanaa jira xidigaha geeska, kasoo jeeda magaalada Boorama. sidoo kale fanaankani waa fanaan aada looga jecel yahay Somaliland iyo welibana dhinaca koonfurta Soomaaliya. guud ahaan Soomaaliya o dhan baa laisku keena yidhahdaa, laakiin haddana
waxaynu kala qaadi karaynaa mararka qaar laba magac. marka taasi wax macnaa kuma sii fadhido haddii laba magaca loo kala qaadiyo haddii laisku dhajiyaba. nimcaan hilaac waxa uu ka mid yahay haddaynu soo noqono fanaaniinta soomaaliyeed ee aan garhka la bixin, sababtoo ah nimcaan hilaac oo garh weyn leh hadduu kaa soo horbaxo run ahaantii waad ka carari lahayd. waayo nimcaan hilaac wuxuu ogyahay, inaguna aynu ognahay haddii nimcaan hilaac maanta uu gar lahaa inuusan yacni ahaan lahayn superstarka. waayo nimcaan hilaac sababta aanu superstarka u hayn ama aanu hayn fanaanka caalamiga yacni fanaanka soomaalidu aada u jecel yihiin aanu u ahaan lahayn waxa weeye dee garh weyn hadduu yeesho nimcaan hilaac oo garh weyn dee waaba mabuu soo baxeenba, mabuu noqdeenba stageka imika uu taagan yahay ama heerka uu taagan yahay mabuu noqdeenba nimcaan hilaac. laakiin nimcaan hilaac marka horeba garhka waxa uu u samaystay yacni aanu u samaysan waxa weeye bilaa garhka u noqday si uu noqdo xidig. haddaba waxaan kaloo ka hadli doonaa fanaanka loo yaqaano waa fanaanka reer jigjiga, waa fanaanka loo yaqaano suldaan seyraar, suldaanka geeska. fanaankani run ahaantii waa nin dheer. ilaahay markuu biniaadanka abuuro laba noocunbuu ka dhigaa sidaynu ka hadalay, nin dheer iyo nin gaaban. ninka dheer ee yacni loo yaqaano suldaan seyraar waa fanaankii qaaligaaye run ahaantii waxa uu ka mid yahay fanaaniinta yacni mustaqbalka wanaagsan leh. isagoo mustaqbal wanaagsan leh ayuu haddana waxa uu leeyahay steel, haddana waxa uu la sii baxay garhkii maadaamuu garhku ragga qurxiyo, maadaamuu garhku quruxu yahay ragga. sidaasay tahayna waxa uu ku jira 10 fanaan ee soomaaliyeed ee loogu jeceliyey ee welibana yeeris activeka ku jira yacni sanadadu firfircoonaa ku jira ee welibana superstarka soomaalida. sidaasay tahay fanaankan loo yaqaano suldaan seyraar waxaa kale uu ku jiraa 10 fanaan ee ugu garhka quruxda badan soomaalida. haddaba suldaan seyraar sababta ugu jira 10 fanaan ee soomaalida ugu quruxda badan xagga garhka waxa weeye yacni wejigiisa uu samaysay qaab soo dhuuban. sidaasay tahayna waxa uu garhka u goostay qaab ku habboon yacni wejigiisa. sidaasay tahayna wejigiisuu dhuuban yahay laakiin wejigiisu ballaadhayay maaha. sidaasay tahay suldaan seyraar waxa uu ku soo baxay garhka, isla markaana waxaan odhan karnaa waa yacni qofka labaad ama qofka saddexaad haddaanu qofka koowaadba noqon ee soomaalida ugu garhka quruxda badan markaynu ka hadlayno fanaaniinta iyo fanka soomaaliyeed. haddaba suldaan seyraar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta yacni activeka ah isla markaana ku jira sanadadii ay firfircoonayeen, isla markaa sidoo kale ah superstar. waxaynu kaloo ku hadli doonaa boqorka codka macaan, waa ninka loo yaqaano maxamed siciid bike. ninkan haddaynu ka hadalno waa fanaan reer hargeysa, waa fanaan soomaaliyeed, waa fanaan yacni hadalhayntiisu aada u badan tahay, xataa heesihiisa siyaabo badan loo macneeyo, siyaabo badan yacni loo fasiro. fanaankan loo yaqaano bike waxa uu ku noolyahay magaalada hargeysa, xaruntiisuna halkaasay tahay. waa fanaan isagu laba shay buu ku caan yahay. run ahaantii wuxuu ku caan yahay fankiisa iyo weliba dhoola caddaynta, laakiin fanaankani wax garha ma laha. run ahaantiina hadduu bike iyo garh weyn kugu soo bixi lahaa dee waxaad u qaadan lahayd maasha allah, nin sheekhaad u qaadan lahayd. laakiin bike run ahaantii wax garha ma laha. waayo waad ujeedaa bike waxa weeye fanaaniinta ku soo baxaya inaysan garh lahayn. waa fanaaniinta haddii ay garh waaweyn lahaan lahaayeen yacni odayaasha noqon lahaa, odayaasha maadaamuu jirkiisu buuran yahay, maadaamuu yahay nin buuran, maadaamuu yahay nin maaragtay bike yacni xoog weyn uu yahay yacni garh kuma soo baxayo. waxa uu noqon lahaa qolooyinka musaaracada ciyaarto xoogga waaweyn oo kale waa laga baxsan lahaa bike. haddaba waxaa jira fanaaniin kale oo iyaguna garhka la baxa iyo fanaaniin kale oo aan garhka la bixin. sidaa daraaddeed bike wuxuu ku jiraa fanaaniinta aan lagu tirinayn kooxda garhka, laakiin fanaaniinta bilaa garhka seenyada ayaan ku tirinaa. seenyo ma maqasho weligaa? haddaba seenyadaasaynu ku tiri doonaa. fanaankan run ahaantii waa fanaan aada iyo aada loo jecel yahay, waa fanaan heesihiisa laga daba dhacay, waa fanaan xidig ah laakiin garh ma laha. sidaasay tahayna wuxuu ku qurux badan yahay, bilaa garhkiisa ayuu ku qurux badan yahay. waxaynu kale ka hadli doonaa xidig isaguna caanka ah, xidigaha gaadhay, xidiga yacni samada heehaabaya. waa xidiga ay marwada madaxweynuhu taliso, yacni isagu waa madaxweyne, marwadiisuna waxa weeye yacni marwadii madaxweynaha. waa xidiga loo yaqaano dayax dal nuurshe.
run ahaantii fanaankan iyo fanaankii ka horeeyey BK labaduba dadka Soomaaliyeed ama taageerayaashooda waxay ku khaldaan yacni qosolka iyo dhoola cadaynta ku khaldaan. Weligaa u fiirso Dayax Dal Nuurshe iyo BK haddaad aragto labaduba way dhoola cadaynayaan markaste. Dhoola cadaynta waxaa la yidhi haddii aanad dhoola caday karayn yacni dukaanba ha furanin. Taasi waa mahmaah shiinaysa. Sidaasay tahay Dayax Dal Nuurshe waxa uu ka mid yahay dadka dhoola cadayntana dadku soo jiita isla markaana marka uu garhkan leeyahay yacni garhka uu la baxay marka hore garh muu lahayn laakiin hadda uu la baxay waxa uu noqday yacni soo jiidasho saa'ida buu yeeshay. Sidaasay tahayna dadka taageera gaar ahaan gabdhaha yacni wuxuu ku sameeyaa emotional buu ku sameeyaa. Dad badan baa wax laga yaabaa gabdho badan markay daawanayaan Dayax Dal Nuurshe isweydiinaya wow this man in Somali miyaa oo Ingiriisi ahayd ninkan Soomaalidii miyuu ku jiray. Run ahaantii Dayax Dal Nuurshe waxa uu ka mid yahay haddaynu dulucda iyo xaqiiqada usoo daadegno fanaaniinta garhka ku quruxda badan, fanaaniinta yacni aan ku qurux badnayn yacni senyada ama aan ku qurux badnayn bilaa garhka. Sidaas oo tahayna Dayax Dal Nuurshe waa fanaan tagay weeye, waa fanaan xidiga, waa fanaan heesiisa laga jecel yahay Muqdisho iyo geyiga Soomaaliyeed oo dhan. Waa fanaanka Soomaaliyeed ee keliya yidhi anu kumaba jiraba kooxaha kama tirsani. Sidaasay tahayna waxa uu ku qurux badayay garhka. Run ahaantii Dayax Dal Nuurshe dhammaantiin waynu taageersanahay. Dhinaca kalena daawadayaal waxaa kaloo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed iyaguna garhka ku quruxda badan. Fanaanka loo yaqaan Najiib Alfa waa fanaanka heesiisa aadka loo jecel yahay, waa fanaan Soomaaliyeed, waana fanaan run ahaantii mas'uuliyad badan ay ka muuqato marka la eegayo dhanka fanka iyo weliba marka la eegayo shakhsiyadiisa guud. Fanaankan loo yaqaano Najiib Alfa waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee run ahaantii garhka aada ugu faana. yacni bilowgii fankiisa ilaa imika waxa uu leeyahay fanaankani garh buu leeyahay. Sidaasoo tahayna heesiisa inta ugu badan waxaa kaaga soo muuqanaya isagoo maalinba maalinta ka soo dambeysa garhkiisa wax kasoo bedelaya yacni dhinaca shacniga iyo quruxda garhka. sidaa daradeed fanaanka loo yaqaan Najiib Alfa waxa uu ku nool yahay qurbaha. sidaasoo tahayna waxa uu aad iyo aad yacni style ugu haystaa ama aad iyo aad u taageersan yahay la bixidda garhka. sidaasoo tahay waad u jeedaa fanaankan heer waxa uu ka gaadhay fankiisa yacni garhkiisan u jeedaa uu soo caseeyey isla markaana garhkiisa midaba ka dhigay. labada dhinac waxa uu ka dhigay madow, dhinaca dhaxana ama halka dhaxana waxa uu ka dhigay casuus buu ka dhigay, taasoo run ahaantii odayaasha Soomaaliyeed ay ahaa jirtay yacni garhkooda casaan ka dhigi jireen. waa oday Soomaaliyeedkani markaa run ahaantiina Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam garhka waa yacni waa in la caseeyaa buu yidhi oo maaragtay sidaa laga dhigaa qofka markuu weynaado. laakiin fanaaniintan iyagu style bay ka dhiganayaan. sidaasoo tahayna styleska ay ka dhigayaan garhkooda waxaa ka mid ah sidaad u jeedaan imika sawirkan fanaanka loo yaqaano Najiib Alfa garhkii wuu caseeyey waanu la baxay. run ahaantiina waa fanaan aada ugu quruxda badan laakiin casuustaasun ka yardaaban odhan lahayn waqtigeedii maad gaadhi. geesta kalena daawadayaal fanaanka loo yaqaano Qamar Sugaani waa fanaan reer Hargeysa. isaguna fanaankani run ahaantii waxa uu lahaa jiray garh yar buu lahaa jiray run ahaantii uu jaray. mana jecla fanaankan inuu garh la baxo, waayo hadduu garhka uu la baxo ama aad arki lahayd Qamar Sugaani oo garh weyn leh run ahaantii kuma qurux badnaa. sidaa daraaddeed Qamar Sugaani waxa uu qurux u arkay garhka qaybtiisa yara dhexe yacni garhka Hitlerka ayuu qurux u arkay. daawadayaasha sharafta iyo qiimaha badan oo waxayn kaloo soo qaadanaynaa fanaanka loo yaqaano Cabdi Dhaanto. anigu run ahaantii fanaanka waxaan u bixin lahaa Cabdi Gaadhweyne. run ahaantii fanaankani yacni waa fanaan garhkiisu yacni garh isku jooga buu leeyahay. waa fanaan run ahaantii garhka yacni inuu hiddo u leeyahay ma garanayo oo waalidkiisa iyo welibana ehelkiisa ay lahaayeen. laakiin fanaankani run ahaantii waa fanaan garhka ku quruxda badan, waana fanaaniinta styleska ku ah garhka. dhinaca kalena waxaynu soo qaadanayna fanaanka loo yaqaano Liil Baliil waa taqaana waa fanaanka boqorka raabka Soomaalida ama heesaha hip hopka ah. sidaasoo tahayna Liil Baliil ma jecla yacni ma jecla inuu garhka la baxo, waayo shaqadiisaba maaha. sidoo kale waxaynu soo qaadanaynaa fanaanka isaguna aadka u jecel bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii fankiisaba. dhammaadka muu gaadhin laakiin bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa fanka aada u jecel inuu garhkaasun lahaado. waa fanaanka loo yaqaano waa wada taqaana waa Guulad Simba. fanaankan run ahaantii garhka wuu ku quruxda badan yahay maadaama uu gaaban yahay. haddana fanaankani haddana waa fanaaniinta ku kalsoon yacni inuu garhkiisa maaragtay uu yacni la soo stageka la yimaado.
sidoo kalena daawadayaal waxaynu soo qaadanaynaa fanaanka isaguna aan u bixin lahaa dalmar garweyne. waa fanaanka loo yaqaano dalmar yare. run ahaantii fanaaniintu yara bay la wada baxayaan, laakiin yara ma aha. ninkan waa nin weyn weeyaan, laakiin sidaasay tahayna waxa uu ka mid yahay yacni soomaalida maaragtay dhinaca isteelka iyo weliba garhka aadka ugu quruxda badan. lama caasiyo qofna, qof walba waxaa la sheegaa wixii uu qalmo isla markaana uu yahayba la sheegaa. marka fanaankani waxa uu ka mid yahay fanaaniinta garhka aadka ugu quruxda badan. laakiin dhinaca kale waxaa jira fanaanka isaguna shactiroolaha ama fanaanka dadka u xaraabeeya ama fanaanka dadka qosliya. waa fanaanka loo yaqaano iidla yare, boqorka koobiga heesaha soomaaliyeed. fanaankan isagana waxa uu ka mid yahay fanaaniinta isaguna aan garhka la bixin. run ahaantiina iidla yare iyo b k baan isaga dhigaynaa. bal qiyaastii b k iyo iidla yare haddaad labadooda artiyo garh weyn leh waxaad u qaadanaysaa dad awoowayaasha kasoo hadhay baad u qaadanaysaa, waayo garhka labada fanaanba kuma qurux badnaa. dhinaca kalena fanaanka reer jabuuti waa fanaanka yacni starka weeyaan, waa fanaanka soomaaliyeed cawaale aadan. cawaale aadan wuxuu ka mid yahay fanaaniinta aan hoosba u dhicin, kor unbay usii soconayaan. inkastood moodo beryihii u dambeeyey in shaqadaysu ay gaabishay dhinaca fanka, laakiin cawaale aadan waxa uu isku dayay inuu gar la baxo. laakiin run ahaantii fanaankani inay garhka usoo bixi waayey iyo in kala ma garanayno, laakiin garhku alaanka si fiican uguma soo bixin. waynu rajaynana inuu garh wanaagsan usoo baxo. laakiin sidoo kale fanaanka reer hargeysa loo yaqaano isagana cabdihani waa taqaanaa dhammaantii. waxa uu ka tirsan yahay xidigaha geeska, waxaanu ka mid yahay fanaaniinta heesaha jacaylka qaada. sidoo kalena waxa uu ka mid yahay fanaaniinta aadka loo jecel yahay guud ahaan geyga soomaaliyeed. laakiin run ahaantii cabdihani ma aha dadka maaragtay garhka uu soo bixi karo. isla markaana waxa uu ka mid yahay, markaynu qiyaasno ama aynu halkaa diiradda saarno, waxa uu ka mid yahay fanaaniinta garhkooda aadka u xiiraa, sidaana ku qurux badan. laakiin waxaa jira fanaanka kale ee loo yaqaano isaga xariir axmed. fanaanka loo yaqaano xariir axmed run ahaantii waa fanaan yacni fankiisa la jecel yahay oo ku nool magaalada jigjiga. laakiin dhibaatadu waxay tahay fanaankan yacni laba dhibaato iskugu darsantay. run ahaantii codkiisu inuu hurdo ayaad moodaa, laakiin dhinaca kale waxa uu ka mid yahay fanaaniinta garhka usoo baxaya. insha allah waxaynu ugu ducaynaa garh weyn baan ugu ducaynaynaa, waayo wuu xiiseynayaa.